shirkadu waxay marmar soo daayaan koronto awood leh taasoo ma la dhihi karo sababta waxaan ay ku dhacayaan weyn tana arrinkaas soo noqnoqday si technical ah yani laga korontada marka la soo daayo magaalada muqdisho adduunka standard inaga standardka ma haysano magaalada muqdisho koronto lagu geliyaa waa bridge system waa PS system bridge system way micnaheedu muxuu yahay transformerka marka la joogo maximum 415 volts 420 volts baa joogta korontada marka la soo daayo kaba soo qaad waxaan tusaale soo qaaday in laga soo daayo jabad geelle korontada marka la soo daayo kaba soo qaad 33,000 voltage ku soo baxda transformerka waxa uu imaanaysaa iyadoo 33,000 voltage 33,000 voltage mid kale ayaa wuxuu bedelaa 12,000 voltage 12,000 voltage marka laga qaado waa la qaadaya transformerka timaadaa transformerku laba dhinac uu leeyahay dhinac waa 12 voltage ka yahay 12,000 voltage 11 kV ama 12,000 voltage ka yahay dhinaca kale waa 420 haddii si kasta kulligeen dad wax bartibaatiin physics at least dugsi saraad ku soo aragteen maybe caafimaad xitaa haddaad dhigateen physics qaybtisaad ku aragteen si kasta oo transformerkaas uu qayliyo 420 voltage ma dhaafi karo waay qaabka uu u duuban yahay ayaa waxay tahay qaabkaas 420 inuu dhaafi karin koronto dheeriga marka xagee ka timaada analogy sax aan siinay marka waxaan tusaale idin siinay adoo musqusha ku jira oo qubaysanaya oo tuubadu ku furan tahay sometimes way qof kasta ku dhacdaa soo ma aragtid tuubada qof meel kale ka furo maxaa kugu dhaca bihi way yaraadaan laakiin qofkii bihi hadduu meesha ka dhaca xira maxaa dhaca bihi way soo bataan waxay u khuduucaysaa qalabka aad isticmaalayso tolerance waxa weeyaan muxuu qaadi karaa qalabka marka la soo gadanayo inagu inta badan waxaan ka soo gadanaa China guriyina dib ugu noqdo waxaan ka hadlayaa waa fact shirkada u hadli maayo ummadda Soomaaliyeed baan la hadlayaa qalabka waxa laambadan soo qaadanaya waxa ku qoran laambadan waxa ku shaqeyn kartaa minimum 175 voltage maximum qaar baa ku qoran 220 qaar baa waxa ku qoran 230 qaar baa waxa ku qoran 240 qaar baa waxa ku qoran 250 marka waa standardka haddii aad soo galatay qalab tayo leh 250 voltage baa ku qoran ka soo qaad hadaba waayay adigu waxaad haysatay aad soo galatay suuqa markaad tagtay mid ay ku qoran tahay 230 voltage ogow markii transformerku wuxuu soo daayay 415 voltage 415 voltage technical baan isticmaalayaa inta aynu isla fahamno waa line to line haddii laba line la isku cabiro laakiin line to neutral haddii la isku cabiro waa 240 voltage 240 voltage laamada haysatana meeqay ahayd 230 of course way gubanaysaa standardka marka inagu aynu haysano waa in alaabta dadku ay haystaan ay isqaadi karaan okay hadda anoo 220 ka haysta still ma badbaadi karaa yes seem maxaad ku badbaadi kartaa waxaad ku badbaadi kartaa inaad xirato shay leeyahay voltage regulator voltage-ka shay markuu hoos u dhacana kor kuugu soo qaadaya markuu kor aadana hoos kaaga celinaya sidii aan marka hore u sheegayna dhulkaagu inuu terra system ama earthing system hadduu leeyahay gubashadaasi ma imaanayso aan hadalka conclusionka waxaan ku soo celinayaa korontada guri baa gubtay ama laambad baa gubatay aqliga ilaahay wuxuu inoo siiyay inaynu wax ku fiirino transformerka aad korontada ka qaadatay waxa laga yaabaa inay kugula xidhan yihiin 1,000 qoys baa kugula xidhan xaafadaada kaliya gubatay ilaahay ma qadare ma waxaan oran karnaa korontadii wax gubtay hadday korontadu wax gubtay soorska adigu aad wax ka heshay 1,000 qoys baad ka wada qaadanaysaa adiga kaliya maxaa ku guday waxaa ku gubay waa cilad gurigaaga dhexdiisa marka koronto badan shirkaduhu ma soo daayaan hadday soo daayaanna transformerkoodan xamilaynin wallahu a'lam